nabadgelyada naxariista eebe iyo barakooyinkiisu haydin ahaadeen kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan maalin muslimiinta meel walba ay joogaan fadli iyo mansab iyo darajo ku leh waa maalinka yawmul cashuura waa maalin muslimiinta ku weyn meel walba ay joogaan waa maalinkii nabi aadam calayhi salaam la abuuray waa maalinkii nabi ibraahim calayhi salaam dabka laga badbaadiyey waa maalinkii nabi muuse calayhi salaam laga badbaadiyey fircawn lana halaagay fircawn iyo qoomkiisa waa maalinkii nabi ciise calayhi salaam samada loo koryeelay waa maalinkii nabi yunus calayhi salaam xoodka laga badbaadiyey waa maalin mansab iyo sharaf leh ambiyadana u sharaf ah iyo mansab u leh muslimiintana sharaf iyo mansab u leh maalin maalmaha ka mid ah nabi muxamed iyo asxaabtii ayaa soo baxeen iyagoo wada socdaan waxay soo mareen qoom yahuud ah qoomkaasina waa ay soomanaayeen yahuudaasi way soonaayeen nabi muxamed iyo asxaabtii ayaa weydiiyeen maxay tahay maalinkan aada soomaysaan markaasay ugu jawaabeen waa maalinkii nabi muuse calayhi salaam laga badbaadiyey ninkii gaalka ahaa ee ilaahnimada sheegtay ee fircawn iyo qoomkiisana gebi ahaanba la halaagay markaasay yiraahdeen kudayasho nabi muuse aan ku dayanayno soomitaankii uu soomay iyo shukrintii uu bixiyey darteed ayaana anaguna u soomaynaa oo aan ilaahay ugu shukrinayna badbaadadii uu badbaadiyey nabi muuse iyo qoomkiisa marka nabi muxamed waxa uu yiri anaga ayaa idinkaga xaqnimo badan hadaynu nahay macshar almuslimiin anaga isku qoomnahay anaga tawxiidku namideeya anaga maalinka yawmul aakhiro hal meel wada geli doona anaga muslimiin idinka isla ah oo idinkaga xigna idinkagana xaqnimo badan inaynu soono qudwa ahaana ugu dayano nabi muuse calayhi salaam marka nabi muxamed waxa uu amray asxaabtii ama saxaabadii in ay soomaan maalinkan yawmul cashuura saxaabadii ayaa karaahsadeen ama asxaabtii ayaa karaahsadeen in ay qudwo ugu noqdaan ama ay ku daydaan yahuud iyo nasaaro oo nabi muxamed kala dardaarmi jiray marnaba inaan lagu dayan marka asxaabadii waxay yiraahdeen nabi muxamed waa taana dhihi jirtay yaan lagu dayanin yahuud iyo nasaare tan waa ku dayasho yahuudina waxay leeyihiin muslimiinta waynoo ogyihiin waxaynu sameeyaan kuwa nagama fog ayay leeyihiin nabi muxamed waxa uu yiri ilaahay hadduu ii baaqi yeelo naftaan insha raxmaan sanadka soo socda waan soomi doonaa sagaalaadka iyo tobanaadka marka yahuudan khilaafan lilyahuud waaye marka allahul mustacaan maalinkan nabi muxamed waxa uu yiri waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ku dambi dhaafo dambigii sanadkii hore la soo galay oo dhan inuu ilaahay ku dhaafo marka nabi muxamed wuxuu maleystana ama uu rajeeyo waa mid xaqiiqo ah ilaahay baa ka dhigay kun fayakuun allahul mustacaan marka hadalkayga aan soo gabagabeeye maalinkan waa maalin mansab ku leh dembi dhaaf lagu helayo waa 2 beri oo kaliya sagaalaadka iyo tobanaadka ama tobanaadka iyo 11aadka 2 beri in la soomaa khayr badan intii lagu daya lahaa yahuud iyo nasaaro allahul mustacaan marka maalinkan waxay ku aadan tahay sida la sheegayaba axad iyo isniin ama isniin iyo talaado isniin waa laga maarmaan laakiin axad oo sagaalaad ah iyo tobanaad oo isniin khanaysa iyo ama isniin iyo talaado oo tobanaad iyo 11aad kala noqon doonta insha Allah waxaan khalday min nafsi cilmiga yar iyo shaydaan ayay ka ahaadeen waxaan saxnay min arrahmaanir rahiim ayay ka ahaadeen dembiga waalidiinteena Allah dhaafo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.